ma malayn kartid laska ku dhacay ama lacagta uu ku waayay customer Soomaaliya communication-ka ama language barrier-ka wax loo yaqaano isfaham waaga isaga ka dhaxeeyay Alibaba supplier ama isaga Chinese factory kaliya waxay sababtay inuu $10,000 ku waayo xagga sababtoo ah miscommunication ka dhex dhacay labadooda muuqaalka maanta waxaan kula wadaagayaa aad inuu tahay qof Alibaba wax ka dalbada ama warshadaha la xiriira isagoo xaqiisa iska fadhiyo wadankiisii language barrier wax loo yaqaano ama caqabada xagga luqadda waa number 1 waxa weeyaan waxa kala haysta isaga customer-ka iyo Alibaba supplier haddaba si aad taa uga hortagi lahayd maxaa sameyn lahayd wax isticmaashaa afartan application ama software Alibaba wuxuu leeyahay translation u gooni ah wuxuu ku soo qoray supplier ku haduu Chinese ku soo qoro translate kare number 2 WeChat translate haddii aad WeChat haysan wax kula talinayo inaad WeChat la soo degto qaabka loola soo dego dad garaneyn muuqaal ayaan ka soo sameyn doonaa insha Allah waan xiiseenayaa comment-ga iyo soo qor number 3 waxa isticmaashaa Baidu translate waa application China ka caana xog badan waad ka heli doontaa waana translate aad iyo aad u sax 99% dhalinyaro badan ama dad yaryar oo aad u badan oo wadankii joogta ayaa wax isticmaalaan waxa loo yaqaano Google Translate صح maaha iska ilaali ha isticmaalin